ተመልካቾቻችን ለድምጽ ጥራት ዲጋንካ ሶማሊያ ኢትዮጵያ መጋለada Jigjiga ka anbabaxay 200 oo dhalinyaro oo laga soo kala qaaday xaafadaha magaalada Jigjiga isla markaasna u kactamay dhankaas iyo magaalada Soomaaliya ee deegaankaas Canfarta iyagoo isla markaasna dhalintaas ay ka soo baran doonto magaalada Soomaaliya ee deegaankaas Canfarta farsamada gacanta falada warkaasna waxaan u qaadanayaa wariyaha Cabdiraxmaan Gaata ተመልካቾቻችን በዜናዎቻችንና በፕሮግራም ሲሎጋ መርዳሊዮ ቆርሻha labaad ee kobcaya isbedelka dhaqaalaha dalkeena Itoobiya looga saarayo saboolnimada ee sanadada 2008 ilaa 2012 ee tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya isla markaana dalkeena Itoobiya uga mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ayaa waxa uu qorshahan yahay mid wax tar balaaran u leh bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya hadaba waxa xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ka anbabaxay 200 oo dhalinyaro ah kuwaas oo laga soo kala xulay xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga iyagoo markaas ay u tagi doonaan dhalinyaradani dawlad deegaanka Canfarta caasimadiisa Samaara sidii ay u soo baran lahaayeen xirfadaha dhanka farsamada gacanta qorshahan uu yahay mid laga helay wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer federaal kadibna loo soo dhaadhiciyay heer deegaan iyadoo qorshahan heer deegaanna xulista iyo uga faa'iideynta dhalintanba ay si wada jir isaga kaashadeen xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer deegaan iyo sidoo kale xafiiska maayarka maamulka magaalada Jigjiga waxaana dhalinyaradani intii ayna ka anbabaxin xaruntani deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga kulan la mas'uuliyiinta maamulka magaalada Jigjiga iyo xubno ka socday xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer deegaan iyadoo duruucda kulankan ay ahayd mid dhalinyaradani lagu la dardaarmayay maadaama ay u tagi doonaan dhalinyaro kale oo ka kala yimid deegaanada dalka Itoobiya isla markaana ay u ilaalin lahaayeen anshaxa sidoo kalena ay guulo uga keeni lahaayeen dhanka waxbarashada waxaana halkaasi kula hadlay dhalinyaradani kusimaha xafiiska caafimaadka ee maamulka magaalada Jigjiga mudane Bedel Sheekh Maxamed oo ugu horeyntii ka warbixiyay duruucda kulankan sidoo kalena ku booriyay dhalinyaradani sidii ay u ilaalin lahaayeen anshaxa uguna dadaali lahaayeen kamira dhalinta fursadahan waxbarasho ee la siiyay saaka waxaan sugu nimidnay waa suguutiskii dhalinyaradii kala duwaneed ee qabalayowga maamulka magaalada Jigjiga laga soo kala xulay kuwaas oo la geyn doono Samaara si ay xirfado kala duwan ay halka ugu soo bartaan isla markaana noloshooda ay wax uga bedelaan marka iyadoo xukuumaddu ka duuleyso qorshayaasha u yaala ee lagu horumarinayo dhalinyarta ayaa xafiiska heer deegaan ee arrimaha bulshada wuxuu soo diyaariyay qorshahan ee laga qayb gelinayo ama ay sugu imaanayaan dhammaan dhalinyarada deegaanadu marka deegaankeenuna qaybtii aan ku lahayn inaan aan ka qayb galno isla markaana dhalinyarteenu xirfado badan oo kala duwan ay soo bartaan deegaankii ku soo laabtaan noloshooda ay wax ka bedelaan iyo nolosha mataqaanaa deegaankaba horumarka deegaanka ka socdana ay ka qayb qaataan haddaba dhalinyaradani u anbabaxay dawlad deegaanka Canfarta caasimadiisa Samaara ayaa waxyaabaha ay halkaasi ku soo baran doonaan waxa ka mid ah barashada farsamada gaadiidka ee sida darawalnimada iyo mechanical-ka qurxinta dumarka alxanka faarada qaabka loo maareeyo hoteelada laydhka iyo xirfado kala duwan oo dhanka farsamada gacanta ah gabagabadii kulankan ayaa waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah dhalinyaradani laga soo kala xulay xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga ee iyagu markaasi u anbabaxay dawlad deegaanka Canfarta caasimadiisa Samaara waxa ayna tilmaamayaan sida uu yahay dareenkooda farxadeed aad baan u faraxsanahay because of waxaan ku faraxsanahay Chinese aan hore u heli jirin dhalinyarta dawladda deegaanku yaan maanta helay waxaan ku baxaynaa 200 oo qof oo dhalinyaro dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhalatay maamulka magaalada laga soo kala xulay maamulka magaalooyinka Jigjiga run ahaantii horta dareenkaygu maanta macni waxaan ku qiyaasaa farxad ma soo halkan kuma soo koobi karo meesha tagi doono dabcan meeshaan tagi doono run ahaantii waxaan tagaynaa Canfar kilil baan tagaynaa waxaan rajaynaynaa inaan horta kililkeena marka koobaad aan guul u soo hoyno la yiraahdo dhalinyartiis dawladda deegaanka Soomaalida ka timiday saas ay ahaayeen lagu faano dhalinyarada lagu faano akhlaaq la nimaadno run ahaantii waxbarashadana iyada maxaan raday inaan halkeega wax kastiba saarno baan diyaar u nahay waxaan ku kalsoonahay 100% dhalinyarta dawladda deegaanka Soomaalida maanta ka tagaysa baan ku kalsoonahay in ay shuruudahan maanta ay buuxinayaan waana ballanqaad aan ballan qaadayno taasi weeyaan run ahaantii waxyaalahan soo baran doono hadda rag iyo dumar kale way siman yihiin waxaan soo baranaynaa injineernimo water darawalnimo waxyaalo badan management farsamada gacanta kala duwan ma soo baranaa haddaan haween ahaan nahayna waxaan leeyahay meel kasta wiilashaanadu galaan waan galaynaa waan baranaynaa wax kasta waan baranaynaa marka guul way man rajaynaynaa